barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA-da. dhegaystayaal gobiwaati abaalgudda waxaa Allah u naxariistay laga hayaa cagadhiig sababtii uu ku yiri inta aan idin gelinna waxaa ila habboon isaga u dhigista inaan wax idin ka sheego. waxaa la oran jiray Xaaji Maxamuud Macallin naanaysna Xaaji cagadhiig buu lahaa. xarumihii daraawiisheed culimadii ka aflaxaday ayuu ka mid ahaa. wuxuu ahaa nin sayidku barbaarsaday ee weligiiba uu ku dhaadan jiray. daraawiishtii beledweyne asaastay ayuu ku jiray. kuwii markii ugu horeysay webiga Shabeelle agtiisa ka dhisay labadii qalcadood ee dagaal Saldig iyo Aaminna lagu kala magacaabi jiray. halkaas ayuu taliye sare ka ahaa. dhowr jeer oo Talyaanigu isku dayay inuu hiiraan qabsadana wuxuu ahaa ammaanduulihii intii muddo ah uu u mari waayey. darwiishkii la oran jiray Indhaceel Daamay Raage iyo ciidankii uu watay wuxuu ahaa taliyihii Buulabarda u diray halkaasoo ay ruuxa ku weysiiyeen guddoomiyihii degmada iyo askartii ilaalinaysay ee caddaanka iyo Soomaalidaba lahayd. aan haddaba dib ugu noqdo oraahdii ahayd gobiwaati abaalgudda iyo duruuftii uu xaajigu ku yiri. waa 1920kii daraawiishtii fadhiday qalcadihii Mirashe iyo Taleex waa gugii inta dayuuradaha lagu soo kiciyey lagu jabiyey ee Ingiriis iyo Soomaalidii uu watay ay cagta mariyeen. dooxooyinka Nugaaleed waa gugii boqolka loogu xasuuqay dabadeedna afarta garjoo ay u kala firdheen oo u kala firxadeen. nasiib darro qalabka wax la isugu tabiyo oo aan la haysan darteed guuldarradaas warkeedu 3 bilood kadib ayuu cagadhiig iyo beledweyne soo gaaray. kolka daraawiish dambe ma jirtee inta aan Talyaani ugu soo gelin soo inuu qalcadaha baneeyaa isagana lama gudboona. taladaas ayaa la fiicnaatay. wuxuuse istusay qalcadaha intii Talyaani sahal isaga taabi lahaa inuu u gacan geliyo qolo kale oo ay cod ahaayeen asii iyagu Soomaali ah. waa saldanadii Hobyood ee reer Kenediid iyo ciidankeedii Ceelbuur fadhiyey. dagaaltaas buu cagadhiig u baahday nin isbiimeeya oo taladiisa Ceelbuur gaarsiiya. markaas buu u cidirsaday darwiish uu abaal hore gashaday oo diiriye shirwac la oran jiray diiriye caytanna loo yaqiin. kaasoo markii loo soo geliyeyba uu kula booday diiriye gobiwaati abaalgudda. weedhaasoo haddiiba intuu duluceeda gartay uu diiriyena kaga jawaabay kaaga marag. isla markiiba sange iyo geenyo toon ah isaga oo aan ku joogin. sibraar caana ahna allaha ka dhigay isaga oo aan wax jiscina sidan kabana aan ilanayn ayuu waddada cagta saaray. maalmo yar kadibna xilsi guushaa iyo isaga oo ciidan xoog la horkacaya ayaa soo galay beledweyne oo cidla ciilsila ah. daraawiishe mar hore ka baxday. wax dhaqaaqana lagu arko gabar lugla oo socon weyday. waa jeer siduu goobjoogu noogu warramay. meeshii ugu dambeysay ee sayidkii loogu sheegay ayuu cagadhiig afka saaray. wuxuu ugu tegay go'aano iimay buurta la yidhaahdo ilaa uu ka godgalayna kama ag fogaan. kalayaacii geedidaa foolxumo ka dambeeyey ayuu ku tegey Waamo oo markaa uu Ingiriisku haysto. goob weyn ayuu fadhiistay. halkaasoo xer uu urursaday uu kutubta cilmiga sharciga ah ugu geli jiray. webi Ganaane degtiisa galbeed ayuu xaajigu dabin ku nagaaday. gadaalkiina waxaa ka war helay gumaysigii Talyaaniga oo isna degta bari ka talinayay. sidaan soo sheegayna uu u godobaysnaa. markaas buu go'aamiyey in la soo qabto si looga gooyo wixii uu ku faray waagii inay hiiraan qabsadaan ay u tafaxaydnaayeen. maalintaas baa shirqoo loo maleegay. basaasiin Soomaali ah ayaa xaruntiisii soo buuxiyey intay xad cilmi doona isaga dhigeen. dabadeedna goor aan loo filayn ayay dafeenoo webiga inta ka gudbiyeen Talyaani gacanta ka geliyeen. isna xabsiga dhexe ee Xamar ayuu ku tuuray. halkaasoo uu ugu tegey Sheekh Xasan Barsana iyo wadaniyiintii u halgamay gumaysigii Talyaanigu kolba banaadir qabsaye inuusan dalka ku wada fidin. war iyo dhammaantii xaaji cagadhiig
xabsigiibuu talyaani ku dilay isaga oo malaha ku celcelinaya mahmahdii ay soomaalidu ka sheegi jirtay geedkii kolkii lagu goynayay godinta ku oran jiray godin yahay imaad goyseene gabalkay baa kugu jira oo uu daabka ula jeeday waa tahay markii la gaaro bilaha May, Juun iyo Luulyo waxay Soomaalidu xustaa halgankii gobonimada loo soo galay ee madax banaanida lagu helay hase ahaatee 60 iyo dheeraadkii sano oo aynu soo dhaafnay su'aasha taagneed walina taagani waxay tahay Soomaalidu gob ma tahay oo ma u abaal gudday raggii iyo dumarkii halgankaas soo bilaabay ee ugu dambaystiina dadaalkoodii lagu liibaanay duq aanu sheeko wadaagnahay oo su'aasha jawaabteeda aan ka tiriyay ayaa igu yiri maya wuxuuna raaciyay abaalgudku lacag faraqa la isugu shubo ma ahee waxaa ka wacan qofku wixii uu taray in loo aqoonsado dadkii uu u tarayna ay u og yihiin wuxuu raaciyay aqoonsiga waxaa ka mid ah faca dambe inuu yaqaan xusuusnaadana maalmihii adadkaa ee halgamayaashii dalkoodu ay soo mareen wuxuu raaciyay ardada Soomaaliyeed ee maanta wax ka barata dugsiyada sare iyo jaamacadaha imise ayay kula tahay inay sheegi karto magacyada 6 ka mid ah asaasayaashii SOL wuxuu raaciyay da'yarta iska daayay ma kula tahay 60 jirka eega jooga inuu ka wada jawaabi karo taariikhahan aan ku sheegi doonaa waxa ay ka waraxayeen 11 Janaayo 1948 5 Oktoobar 1949 1 Agoosto 1952 12 Oktoobar 1954 imise ayaa ka jawaabi karta dawladaha Colombia, Masar iyo Philippines halka taariikhda gobonnimadoonkii Soomaaliya ay ka soo galaan wuxuu raaciyay aqoon la'aanta jawaabaha su'aalahaas ayaa ah abaaldhac ugu weyn cid abaaldhac taqaan iyo gobonnimana kala raad gate maxaa yeelay gobi waa tii abaal gudda sidoo caga dhiig ina baray duqii aan sheeko wadaagta ahayn tusaalayaashii abaaldhaca Soomaalida markuu kala joojin waayey markuu bilaabay inuu ku soo daro sidii loo faraxumeeyay shantii taalo ee xamar ka taagnaan jirtay ayaa inta hadalkii ka boobay ku iri awgayow raggii iyo dumarkii calanka u soo halgamay in laga abaal dhacay dhexda ma taalo markhaatina waxaa kugu filan gabyaagii halgamaaga ahaa ee Cali Xuseen Xirsi la oran jiray kaasoo dhowr jeer ka cawday horseedkii uu ka midka ahaa ee halgankii gobonnimada ku soo muraxay sidii maandeeq markay mataanaysay ooda looga rogtay ee dheehadii ay soo hooyeen looga soomiyey waa kii lahaa dadku uma gudboonayn markay gobooda taagnaydee sida galowga ciya wiilashii gama adiidayay gabalka iyo fiidkii kuwii guura bahaleeyey koofiyad guduudii kufrigu meel ka geli waayey garbaduubka nimankii u xiray geedna qabadsiiyey ee gudurigoodii dhulwaagigaya daaqsiiyey waxaanu isgaraacnaba markii guushina la siiyey ee geesiyaashii xarbiyey gaada ka ciyaartay bilada lagu garwaaxsado markaan gooskii filanaynay 9 gu nimankii kursiga qaarba gelin fuulay ee aanu gogosha u dhignay ubaxa guud saaray taariikhdii bay god u qodeen kuna gabsiiyeen gabay kalena tudcu ku jiray waa kii Cali Xuseen ku oran jiray xorfada waxaan ka saaraba markuu calanku xuufleeyay xabaalaha kuwii lagu riday iyo xayga soconaya qoonkii sidaa ugu xarmaday looma xeer dhiganay nimankii naftooda u xanibay laga xawaareeyay xalwadii waxaa cunay kuwii xaawo gowracay ee raggii kalena way xaaratay ee xaqa ku taagnaay dhageystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joogo waana toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu abadmo aad iyo aad u mahadsan yahay Axmed Faarax Cali Daaja oo nala socodsiinay barnaamijkaasi dhaqanka iyo halkaad kala socotaanna waa VOA Washington cid wanaagsan mar kale